Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta qiimiga qadarinta inaga mudan meel walbo aad joogtaanba jimco wanaagsan ayaan idin leenahay. Ku soo dhowaada cashar cusub oo aynu ku baranayno luqadda carabiga. Waxaynu bartamaha uga jirnay mowduuc aynu soo wadnay oo ciwaankiisu u ahaa wasaa'il iclaam ama qalabka warbaahinta. Ereyo ku tacalluqa ama ereyo ku saabsan ayaanu baranaynay oo aynu soo wadnay. Halkii aynu kasii wadaynaa ereyadaasi barashadooda. Waxaan ka bilaabaynaa oo marka hore oo inoo joogay 25 tirada 26 ayaan ka bilaabaynaa. 26 انقطاع البث الإذاعي. انقطاع البث الإذاعي وإذا عدى أو هبدا لغا سارو أما إذا عدى أو هبدا بكبحدا أو حالو يقانا انقطاع البث الإذاعي. انقطاع البث الإذاعي وإذا عدى أو هبدا لغا سارو أما هبدا كبحدا أو للدميو ولا بقتيجيو. 27 مقدم البرنامج. مقدم البرنامج وتبيها برنامجك. مقدم البرنامج تبيها برنامجك نينك تبينيا برنامجك ayaa loo yaqaanaa muqadimul barnaamij. barnaamij gudbiye waa yahay 29 mukhrijun soo saare yaan ka boodin 28 mucidul barnaamij diyaariyaha barnaamijka. mucidul barnaamij diyaariyaha barnaamijka 29 mukhrijun soo saare mukhrij soo saare nin barnaamijka soo saare ee isku soo dabarida ayaa waxaa loo yaqaanaa mukhrijun soo saare. 30 qanaatun waa kanaal. qanaatun kanaal kanaalka waxaa soo gudbiya waxaa loo yaqaanaa qanaatun kanaal. janal janal waa english, qanaatunna waa carabi, kanaalna meesha waxa ay soo maraan waaye waa af soomaali. waa yahay 31 barnaamijun diiniyun waa barnaamij diini ah. barnaamijun diiniyun waa barnaamij diini ah. waa barnaamij diini ah oo markaasi wacdi ama tafsiir ama wax ay ka socdaan. 32 idaacatun maxalliya waa idaacad gudaha ah. idaacatun maxalliya waa idaacadda gudaha ah. idaacad dalka gudihiisa ku taalla oo dibadda ayna gaaraynin waxaa loo yaqaana idaacatun maxalliya idaacad gudaha ah. 33 idaacatun dowliya idaacad caalami ah. idaacatun dowliya idaacad caalami ah. idaacad dal iyo dibadba laga dhageysto waxaan leenahay idaacatun dowliya sida BBC da iyo VOA da oo kale. waayaas 34 idaacatun mar'iya idaacad la iska arko idaacatun mar'iya waa warbaahin la iska arko ama idaacad la iska arko oo muuqaal leh. 35 waxaan maraynay 35 saxiifatun yowmiya waa wargeys maalinle ah. saxiifatun yowmiya waa wargeys maalinle ah. waayahay 36 الصحف المحلية waa wargeysyada gudaha. wargeysyada gudaha waa wargeysyada ka soo baxa dalka gudihiisa ee la akhristo. 37 الصحف العالمية. الصحف العالمية waa wargeysyada caalamiga ah. wargeysyada caalamiga ah wargeysyada caalamka oo idil laga akhristo. الصحف العالمية
waa wargeysyada caalamiga ah. 38 majallatun usbuuciya waa wargeys toddobaadle ah. majallatun usbuuciyatun wargeys toddobaadle ah waa wargeys toddobaadkiiba mar soo baxa oo la akhristo. majallatun usbuuciya waa wargeys toddobaadle ah. 39 majallatun shahriya wargeys bille ah. majallatun shahriya wargeys bille ah waa wargeys soo baxa bishiiba hal jeer. majallatun shahriya waa wargeys bille ah. 40 idaacatun masmuuca waa idaacad la iska maqlo. idaacatun masmuuca waa idaacad la iska maqlo. waa idaacad maqalka uun ku kooban oo dadku ay dhegeystaan oo aan lahayn wax aragti dhaqdhaqaaq iyo dadku wax meesha ka hadlaya midna aadan u jeedin oo maqalka uun ku kooban. idaacatu masmuuca waa idaacad la iska maqlo. 41 akhbaarun maxalliya. akhbaarun maxalliya waa wararka gudaha ah. akhbaarun maxalliyatun wararka gudaha ah. wararka ku saabsan dalka gudihiisa oo qura ah waxaa loo yaqaanaa akhbaarun maxalliya wararka gudaha. 42 akhbaarun caalamiya waa wararka adduunka. akhbaarun caalamiya waa wararka adduunka. 43 saxiifatun waa wargeys. saxiifatun wargeys waxaa kaloo dhihi kartaa jariidatun wargeys. saxiifa iyo jariida waa isku macno, waa wargeys. waa tahay intaa ayaynu kusoo koobeynaa eryadii ku saabsanaa wasaa'ilul iclaam ama qalabka warbaahinta. wixii aynu ka tagnay oo idinku aad haysaan carabi ama af soomaali xagga faallada ama kumantiga inoogu reeba. dhammaantiinna waad mahadsantihiin. cashirka intaanu kulmi doono dhammaanteeda waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. arrinta dambe oo xiiso leh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.